waxaa 48 saac ee la soo dhaafay ka da'ay guud ahaan dalka Norway baraf xoogan oo ay barbar socdaan dabaylo iyo qabow daran ka oo la soo sheegayo waxyeelo uu sababay. Magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee dalka Norway iyo nawaaxigeeda oo caan ku ahayd roobabka ayaa barafkan saameyn xoogan uu ku yeeshay, waxaana hakad galay wadooyinka qaar, gaadiidkii isaga kala gooshaya iyo tareemada sidoo kale waxaa la soo warinayaa in tareenkii ka shaqeynaya deegaanada Sørland iyo Agder uu isaguna hakad ku jiro. Si lamida garoonka diyaaradaha Værnes ee magaalada Trondheim ayaa isaguna u xayirmay baraf iyo dabaylo xoogan oo ka jira saaka. deegaanka Trondheim ayaa isaguna la soo warinayaa in ka badan 5,600 in ay saaka koronto la'aan ku waabariisteen. shirkadda Shiis ee basaska ayaa iyaduna sheegaysa in lagu soo wargeliyay dhowr shil ay basaskeeda galeen, waxayna intaa ku dartay in ay hakisay qaar ka mid ah basaskeeda maadaama cimiladu ay aad u xun tahay wadooyinkana uu shilal badan ka jiro. garoonka diyaaradaha Gardermoen ee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa saaka oo Khamiis ah waxaa ka dhacday arrin la yaab leh kadib markii wiil 20 jir ah ay u suurta gashay isaga oo aanan wadan tikidkeeda inuu raaco diyaaradda Air France oo ku sii jeeda magaalada Paris ee caasimadda waddankaasi Faransiiska. 20 jirkan oo diyaaradda ku dhuuntay ayaa waxaa la ogaaday markii ay diyaaradda dhaqaajisay oo ay dhabaha saartay halkii ay ka duuli lahayd, waxayna ku qasbanaatay inay dib ugu soo laabato geedkii ay ka kicitintay. booliiska ayaa sheegay inay kaamerooyinka muujinayaan wiilkan uu ku dhawaanaya qof kale oo ka mid ah rakaabka, sidaana uga gudbaya geedka oo uu ku dhex dhumanaya diyaaradda. waxayna intaa ku dareen in ay hadda gacanta ku hayaan wiilkan ayaa ahaa magangelyadoon ka yimid waddanka Greega oo wax yar ka hor loo diiday in uu raaco diyaarad ku sii jeeday dalka Ireland visa la'aan darteed. waxaa mar kale hawada dib ugu soo laabtay abka sida weyn looga isticmaalo guud ahaan dalka Norway ee Bangi ID ka oo subaxnimadiisa ka hawada ka baxay. shirkadda Stu ee bixisa adeegan ayaa ka dhawaajisay in dhammaan adeegyada abkan ay hadda si caadi ah oo dabiici ah u shaqeynayaan. Olaf Share oo ah la taliyaha dhinaca isgaarsiinta shirkadda ayaa sheegay inay ka shaqeynayeen cilad bixinta abkan, wuxuuna hadda sheegay in abku uu si caadi ah oo dabiici ah u shaqeynayo, wuxuuna cudurdaar ka bixiyay raaligelin la siiyay macaamiisha kuwa oo ay ciladaas soo wajahday subaxnimadiisa ka oo Khamiis ah. waxaa magaalada New Orleans ee dalkaasi Mareykanka ka dhacay fal argagax leh kadib markii nin magaciisa lagu sheegay Shamsuddin Jabbar oo 42 jir ah uu gaari la dhex jibaxay misna jiirsiiyay dadweyne ku sugnaa wadooyinka caanka ah ee Bourbon Street iyo Canal Street ee magaaladaasi. falkan ayaa waxaa ku nafwaayay 15 qofood, wuxuuna dhaawac ka soo gaaray ilaa iyo 30 qofood. ninkan ayaa la sheegay inuu deganaa magaalada Texas sida ay hay'adda FBI-du xaqiijisay, wuxuuna ka mid noqday ciidamada Mareykanka oo uu ka soo shaqeynayay 13 sano. ninkan ayaa sidoo kale ku takhasusay IT-ga, wuxuuna laga soo bilaabo 2021 la taliye sare ka ahaa shirkadda caanka ah ee Deloitte ee bixisa adeegyada xisaabinta, la talinta, canshuuraha iyo maaliyadda. sidoo kale afafka hore ee hoteelka caalamiga ah ee Trump ee uu leeyahay madaxweynaha dooran ee dalkaasi Mareykanka ee ku yaala magaalada Las Vegas ayaa waxaa ku hor qarxay gaariga Tesla, waxaana qaraxan ku nafwaayay 1 qof, waxaana ku dhaawacmay 7 qofood oo kale. gaariga ayaa la sheegay in laga soo kireeyay gobolka Colorado iyadoo loo marayo abka wax laga kireysto ee Turo. si lamida waxa ay booliisku xaqiijiyeen in gaariga waxyeelada ka geystay magaalada New Orleans isaguna laga soo kireystay abkan Turo. waxaa wararkii ugu doorkaloona ee maanta idin soo tabinaya anigoo ah Cabdullaahi Shiine. halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway.